موبايلك وحلوشي كدفته وإيسو بحي هاسو صادقو دهي كدب أنا حدا أنا لكسوري وحزم لي دهي كدب حلوشو موبايلكي كدفته مركز وحدهي هدي ريسبكت من اللي تبع خلنا يوحسو دهي أنا مركز إنا تجارب لكن هذا كورونا قري كجيرو مركز مال وتجي كري أنا دي بحثت هذا حاول كرتيني حاوي سبباني حاوي سببهانا هاي سبب حق وسينا إنه موبايل علوشي كدفته محيد قالت خيانة أو عدان إيجيان عد كهريته هويدي بين سكول أنو جوجو هويدي أبيدهن وبحن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادن سلام قيرت شرفت له meel kastoo dunida dacladeeda iyo daafiyadaad ka joogtaan ugu horeyntii ugula saliya xabiibkeena maxamed sallallahu calayhi wasallam cimri dheer iyo cibaado suban iyo caafimaad qaba idin rajeynaya waa walaashin xawa taako. maanta idinma wada hadal badan, waxaan idin wadaa video qiiro leh, video xanuun badan, video qaylo dhaan wata oo xambaarsan. waxaan idin wadaa Salmaan Yare walaashin Faadimo Buraanbur wiilkeedii yaraa oo gacanta dowladda Sweden ku jiray isaga iyo caruurtii kalaba ayaa wuxuu soo diray video cabasho ah oo uu ku dalbanayo caawinaad ummadda Soomaaliyeed uu uga dalbanayo. ilaahay waxaan ka baryaynaa in uu caawinaad jihadiisa uga fidiyo, gargaar degdegan ilaahay u fidiyo. waxa uu dareemayo oo xanuunka iyo diiqada iyo dhibaatadan ilaahay inuu ka dulqaadan ilaaha raxmaanka uga baryaynaa. ilmaha yarka oo saqiirka oo waalidkiis la joogin oo awoodda lagu haysto oo ma garanaysaa hadaladiisa markaad aragto aad qiiroonayso runtii ilaahay ha ka soo furo oo si nabad oo degdega asaga iyo waalidkiisa isugu soo cesho iyo dhammaantood kuwii kalaba. waxa uu sheegayaa cunuga waxyaabo uu ka cabanayo in naftiisii ay halis ku jirto, la dilo odaygii hayay uu dilaayo. waxyaabaha uu ka cabanayo waxaa ka mid ah in cuntada xaggeeda uu dhibaato ka haysato, cunto uusan cunin, ammaankiisa uu maaragtay dhibaato ku jiro oo ammaankiisa uu khatar yahay, caafimaadkiisa xagga cunto cunistii ay dhibaato asagana ka haysato oo cunto qabo oo fridge laga soo baxshay loo keenayo, maantana in la dilay oo caloosha looga dhuftay telefoon ayuu sheegay. waxaan leenahay habaryar ilaahay ha kuu fududeeyo, hana kaa soo bambaaniyo, faraj khayr qabana ilaahay ha kuu furo. ummadda Soomaaliyeedna hil iyo hooba in lala garab istaago ayaa looga baahan yahay. yaanan hadalka idinkugu badin bal dhageysta insha allahu tacaala sida uu u hadlayo iyo waxyaabaha uu ka cabanayo iyo dhibaatada maanta uu sheeganayo oo meelo badan taabanayso runtii ay ka mid tahay markii la kaxaysanay qaabkii loo kaxaystay xataa oo ku sheegay in asagoo iskuulka jooga loo yimid oo lagu yiri hooyada yaabaha way bixeen oo qaabka khiyaanada lagu kaxaystay. waxyaabaha uu ka cabanaya ay ka mid tahay oo uu leeyahay reerkii hore iyo reerkan labadii reer midna yacni iskuma kay dhaamaan, waa kudka guro qanjo guur. marka waxa weeye dhibaatada faraha badan uu sheeganayo ilaahay ha ka furdaamiyo, hana ka saqiro. caruurtii kalena dhammaantood ilaahay ha soo badbaadiyo ayagoo nabadana waalidiintood gacantooda dib allah ugu soo celiyo. walaashin Faadimo Buraanbur iyo ilmaha aabahoodna ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu samirkooda u badiyo, caafimaad iyo samir labadaba inuu ilaahay ku irsaaqo ayaan ilaahay raxmaanka uga baryaynaa. awlaadooda nabadan insha allahu tacaala farajka ilaahay waa dhow yahay, samra ayaan leenahay ayagoo nabad ha idin imaanayaan oo aan kala dhantaalnayn. qof walba waalida uu dareemaya dhibaatada iyo xanuunka ay dareemayso maantay hooyada Faadimo Buraanbur iyo hooyooyinka kale oo lamid oo caruurtoodii iyo awlaadoodii ay gacanta cadowga ku jiraan. السلام عليكم اسكو سو دباتا محيد و part 2 of waxa icaawi maxayd ani maanta waxay ku dhacay duqo oo la deganahay calooshii ku dhuftay maxayd mobilka calooshii ka dhuftay uu isoo baxay hoos soo dhahay kadib aan waxa dhahay ani lecture waxaas ma liya dhahay kadib calooshu mobilkii ka dhuftay markaas wuxuu dhahay hadii respect ma li taba khayna iyo waxaas uu dhahay ani marka inaad tagaarab laakiin hadda corona guri ku jiro marka meel ma u tagi kari ani dib ay haysta haday caawin kartiin caawi sababaan caawisa u baahanahay sabab xaq u siina inuu mobil calooshii ka dhufto maxay gaalada khiyaano oo ciidan iigeeyaan cid ka horeeto hooyadii been school anoo joogo hooyadii abeedhen waa baxeen maxay ay soo keeneen cid kaleeto cidaas laba maalin la joogay kadib waxa uu sii noqotay muunadare sii noqotay kadibna
maxay iskool badan gambiye waxay ii noqoto ani wax mii noqonin ani noloshay ku ciyaarayaan ani hadday caawin kartiin caawiso baahanahay Soomaaliya iyo caawiyo waana baryaan caawiso baahanahay saam ku joogi karay cunto xatii ma cunin sabab cuntada wax oo aan cuni kar mi sameena hadda maanta markay cunto sameynaa waxay cunto oo qabow ee finjeer ka soo baxatay ma ii kuleenin ee ii soo dhigan wallahi waxaas aan cunto miyahan iyo waxaas aan baamini sheegay Soomaaliya xatii dhibo hadda wax yar maxay ahayd insha Allah waa isku dayaynaa si fiican la hadlo haddana waxaa ka bilaabaa gabara inta degan oo maxay ahayd oo ay ceynayso iyo cunug oo ceynjiye oo maxay ahayd oo ka weyn 20 sano jira xawa waxaasani xaq hawsiinay maya gaalad way ka soo qadaan waxay dhahaan hooyada bay qalad sameeyeen laakiin dadka qaladka sameeyaan waa u jeedaa dadkan way hay ani nin oo calooshii ku dhufanay nin gacan ka maroojina xaytaani nolol xasmihan ani hadda caawin kartiin caawiya sabab dhibaysani ku taani ma ku jiri kari marka waxaa socialkina waxaa rabay laakiin lacag may ku jirin mobilka lacagay ku shubaa duqo mi ku shubin wuxuu dhahay hadoo tiimo ayaa dhahay marka socialka anoo waxay lambarkeedu waa kacaayadu waxa uu dhahay an may wacdi ani ma ii wacdi haduu mobilka lacagta shaqeyneen may ani waxa wuxuu sabab inaa wax kale toolaha la rabo kadib shibus ka dhahay lacagtu ku shubay qolkii gale waa wixii rabay mi ka qabanin marka ani waxaas ita wax miihan beemani sheegay marka hadday caawin kartiin caawiya okay waad soo aragteen waana soo dhageysateen wiilka yarka caawishadiisa iyo dhibaatada haysata in gabar ka weyn ay caayayso wiilka weyn uu qorta ka ceejiyay odaygii uu dilaayo dhibaato fara badan uu ka cabanayo khiyaano lagu keenay run ahaantii caawinaad baan u baahanahay buu leeyahay caawinaad ayaan u baahanahay qofku mar haddii uu caawinaad dalbado uu yiraahdo hallay caawiyo waxa weeye waa qof xaaladiisu ay adag tahay qof nimcaysan oo barwaaqo ku jira caawinaad ma dalbado umana baahna caawinaad waa dareemi kartaan cunuga yarka qiirada iyo dhibaatada iyo xanuunka ka muuqatiyo niyad jabka wuxuu sheegayaa in yacni xadgudub lagu hayo asaga kuwa kale oo maagayo oo caynayo oo la dagaalamayo oo dilaya oo xoogga u sheeganayo inaan waxba laga soo qaadayn ee asaga kaliya ay dhibaatadu haysato ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu cunuga yarka u boogadhayo inuu kasoo bambaaniyo inuu kasoo nabad bixiyo dabcan wuxuu yiri waan soo tegi lahaa laakiin corona carrada ka jiro oo xaafada ka jiro dabcan xaafadu haya meel uma bixi karo ma garanayo anigu koley si uu u bixi karaba ama uu soo tegi karo sababta xorriyad ma haysto odaygiina waa kaasaa dilaya oo sidaa u dilaya sidaa ula dhaqmaya ummadda islaamka ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan qofkii ku caawin kara codkiisa kii siyaasad iyo dawlad iyo arrimo maaragtay ku dhex jira oo dad badan oo Soomaaliya dawladda ku jira wax ka qaban kara kii looyarnimo iyo qareenimo ugu doodi kara dhinac walba qof walba dhinacii uu ka caawin karo intee awoodiisu tahay inuu u istaago cunuga yarka Soomaaliyeed ayaa loo baahan yahay oo dhibaatadu haysato ummadda Soomaaliyeed garab istaag iyo isku dhibrin iyo isku naxariisasha lagu yaqaanaa marka ayagoo dhammaantood xanuunkooda una wada hayo haddana kuwa kale hadda cabashadoodu nama soo gaarayso ma caban karaan oo jaaniska uu haysto oo asaga iyo Suraya ay haystaan ma haystaan kuwii yaryaraa kuwa yaryarka oo jaaniskaas ay labadoodu haystaan ma haystaan ma heli karaan telefoon ma haystaan codkooda ma dhiiban karaan laakiin labadoodu xoogaa codkooda way soo dhiiban karaan oo intaasay ku dhaamaan marka inaan garab istaagno u damqana ayaan xaq u leenahay annaguna ilaahay waxaan ka baryaynaa hooyadood iyo aabahood inuu ayagana qalbigooda u adkeeyo inuu ilaahay samir jamiil ah uu ku irsaaqo ilaahay inuu caafimaad ku irsaaqo oo caafimaadkooda u tam yeelo waa arrin xanuun badan waalidkii markuu dareemayo maalin walba ilmihiisii oo soo cabanayo naftayda halis ku jirta soo dhacayo annagoo oo maaragtay aan jirkeena laga soo gooyin laakiin la mid uu yahay kuwii jirkeena laga soo gooyay ayaan damqashada iyo xanuunka dareemaynaa maxaa u moodaa hooyadii 9 bilood caloosha ku siday oo awlaadeedii oo dhan ay gacanteeda ka maqan yihiin ilaahay waxaan ka baryaynaa awlaadeedii oo nabad qabtay inuu gacanteeda dib ugu soo celiyo ayagana uu samirkooda u adkeeyo imtixaanka kuwa ku samra ilaahay inuu uga dhigo
waa la imtixaamayaa imtixaankana qofkii ku samro unbaa guuleysanaya insha